السلام عليكم أصحابي ملكستا جوجتان يسكستا نو داوانيسان مقعيقو أحمد سليم جانالكا داوانيسان نوا سليم سومالي تي في فضلا هدي تاي مركي كوغو ريسي سبسكرايب سار لايك تنا هيلمامين يو كومنتيغا قرآنك كريمكا ومعجسدي قدام بيسي اي دونيدا قود كيدا سارن تا او لغسو دجيي صوبناها محمد صلى الله عليه وسلم waxay ahayd sanadkii 1438 hijriya kuna beegneed sanadii 2017 waxaan ku sugnaay hoolka tartanka idaacada Daarul Quraan ee magaalada Muqdisho halkaasi waxaan kula kulmay Cabdullaahi Xasan oo qayb ka ahay ardadii ka socotay madaarista xifdinta Quraanka Kariimka ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho wuxuu qayb ka ahaa arday hore ugu soo tartamay صدنك جزء القرآن الكريم دلك جبوتي مقالة جبوتي عبد الله حسن وحو كالماه ركسو قلي ترتنكاسي لغو قبتي دلك جبوتي وحان كل مي هولك إذا عدد دار القرآن أصيقونه إيقاقور بحيي وحيابيه وكسو أركي ترتنكيسا إيو مرحلة ذيه كالدوناي أو صمري عبد الله wuxuu ku rajaweynaa xilligaasi inuu kaalmaha hore ka galo tartanka 30 juz ee xifdinta Quraanka Kariimka waraysi xiiso badan oo aan la yeeshay ayaa u dhacay sida tan garoonka oo hada ka baxna ka bacdina soo dhigay laakiin garoonka wuu soo dhigay waata garoonka markaad ka baxdeen halkeed abaarteen halkeed aadeen oo kale garoonka magaada aad ka tagdeen hotel aad tagteen imise maalmood ayaa joogtay magaalada ha 16 maalmood haye 12 bir ayaa joogtay kaalinta aad gashay ma noo sheegi kartaa Cabdullaahi haye kaalinta shanaad ayaa galay haye dareenkaada waa sidee marka haye maxaad rajaynaysaa maanta oo joogto idaacada Daarul Quraan hoolkeeda shirarka adigoo joogto markaasina sugaya in aad u tartanto kaalinta saddexaad maxaad maanta filaysaa إن صدحات سي رسمي أو صقشو واتهم كسلامين عبد الله